Harry Kane plus Vlahovic plus Onana ayaan barnaamij ku falanqeyn doonaa haddii Allah uu dul ogolaado. Magacaygu waa Maxamed Xasan. Pageka daawaneysana waa Tita Cad. haddii aad cusub tahay soo dhawow. Pageka followda haddaa hore ila joogtayna like, share iyo comment igu dhiirigeli. waadna ku mahadsantihiin mar walbo daawashada fiidiyoda aan soo dhigo. kuna soo dhawaada barnaamijka faahfaahsan. sidaan wada ognahay kooxda kubadda cagta Tottenham iyo weeraryahankeeda Harry Kane waxaad doonaysa kooxda kubadda cagta Bayern Munich beecii hore ay usoo bandhigtay naadiga Tottenham way diiday. wuxuu ahaa 17 milyan iyo hal ciyaaryahan in Harry Kane ay ku bedeshaan, laakiin Tottenham beecaasi kuma qancin, wayna ka diideen Bayern Munich. waxayna dhaheen no. Bayern mar kale ayay dhaheen never give up, misdhiibeyno. way soo laabteen waxayna dhaheen 18 milyan aan ku darnay iyo ciyaaryahankii ayaan weli rabnaa inaan Harry Kane ku qaadano, laakiin dhanka Tottenham weli war ma kasoo bixin. laakiin waa laga yaabaa Bayern Munich in ciyaaryahankani ay ku guuleysato inay heshiis kama dambeys ah ay la gaarto, laakiin warka Tottenham weli ma cadda in 18 milyan iyo ciyaaryahan ay ku qanacdo iyo inay diidi doonto. waxaa laga warsugaa maamulka naadiga Tottenham. sidoo kale kooxda kubadda cagta Juventus weeraryahankooda Vlahovic, Juventus waray soo saareen, waxay dhaheen Vlahovic anaga weli waa u baahannahay. ciyaaryahankan beec nagama ahan. cid kastoo uu dareynaysa ama ciyaaryahankan inay heshiis la gaarto rabta, ninkan mana laga taabtaan waaye. anaga u baahan weli seasonkan inaan ku xamaalano, marka ninkani anagu nala joogaa. Vlahovic beec ma ka ahan Juventus. weeraryahankani waxaa lala xiriirin jiray sidaa ogtihiin banaadiga Chelsea oo markii dambe iska dhaaftay, kuna soo weeraryahan kale kasoo qaadatay naadiga Villarreal. marka Vlahovic sidoo kale Paris Saint-Germain ayaa lala xiriirinaya Vlahovic oo Messi uu ka tagay oo hadda uu ka tagi rabo Mbembe wuxuu joogaa hadda Cameroon. waxa waaye uu iska damaashaadooyaa vacancy ama vacation uu ku jiraa dalka aabihiis uu kasoo jeego, isaga raaxaysanooyaa. maruu hadlayna wuxuu yiri ani buuq uma baani. waxa waaye wararka la isla dhexmaraya kuma jiriyo yiri aan waqtiga qaadinooyaa, markaan soo laabto ayaa mustaqbalkayga ka hadli karaa. ninkan Al-Khalifana wuxuu leeyahay haddii ay Real Madrid ninkan rabto 200 milyan hala timaado, laakiin ninkan Mbembe waxa uu eg tahay inuu Paris ka tagi doono, sababtoo ninkan wuxuu u baahan yahay koob waaweyn sida Champions League. wuxuu Champions League-na u sahli karto inuu qaado naadiga ugu championka badan oo ah Real Madrid. marka Mbembe 80% waa Real, 20% waa macquul inuu sii joogo sanadkan naadiga Paris. marka Vlahovic bartilmaameed oo Paris German uu yahay, inkastoo Paris Saint-Germain uu Vlahovic kaliya bartilmaameed u ahayn oo ay doonayso weeraryahanno badan. sidoo kale Andre Onana weli waxaa ku dhow kooxda kubadda cagta Manchester United. waxa waaye Onana waxay qarka u saarantay inay heshiis la gaarto, laakiin Inter weli waxay leedahay anagoo golahaaye aan ku bedelano Onana aan helin. waxa waaye sidaan ku dirno way adag tahay. Inter waxaa lala xiriirinaya Jan Sommer borteriga labaad ee naadiga Bayern Munich iyo xulka kubadda cagta Switzerland. Jan Sommer haddii ay qaadato naadiga Inter, weliba Jan Sommer waxay ku raadinayaan 4 ilaa 6 milyan naadiga Inter, ugu dambeyn 6 milyan haddii Inter ay kusoo qaado Jan Sommer waxay taagantahay Onanana in ay 50 milyan ama 45 ay ka siiso naadiga Manchester United. marka Manchester mar walbo way ku dhowdaa inay heshiis Onana ay ka saxiixato. marka qodobada barnaamijku maqasheen ayuu iga dhan yahay. barnaamijkan waxaa ka daawan doontaa sidoo kale YouTube-kayga Another One Tita Cade. YouTube-kaygana booqo oo subscribe dheh. page-kana haddii aad ku cusubtahay follow dheh. like iyo share iyo commentina waa xaggiina. tani kulantideena dambe sports xiisa leh.